hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ka digista xaaladaha halis wadareedka ayaa waxaa Nairobi ka daafuray gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane Maxamuud Macali Cabdulle ka oo ay ka qayb galeen agaasimayaal ka socday wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka socday hay-adaha qaramada midoobay iyo marti sharaf kale oo shirka lagu casuumay shirka ayaa diiradda lagu saaray sidii bulshada loo fahamsiin lahaa xaaladaha ka digista khataraha oo ay sababaan fatahaadaha iyo abaaraha kaasi oo ka dhaca inta badan dalkeena Soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macali Cabdulle oo ugu horeyn daafuray shirkan ayaa tilmaamay muhiimadda uu bulshada u leeyahay maadaama lagu casuumay madax ka socotay hay-adaha kala duwan ee dowladda ee ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaan joognaa magaalada Nairobi oo dabcan aan ka furaynay shir ay hay-adaha dowladda ee kala duwan ee arrimaha bulshada ka shaqeeya ay isugu yimaadeen wasaaradaha kala duwan kaasoo runtii ay hogaaminaysa Sodma iyo hay-adda UNDDR ee United Nations ka u qaabilsan xaaladaha ka digista halis wadareedka dabcan waxyaabaha halka u joogna waxay ahayd sidii loo dadka loo fahansiin lahaa ama loola qabsan lahaa xaaladaha isbedelay oo cimilada ah si dadka loo bari lahaa ka digista xaaladaha khataraha oo mar oo dalkeena ka dhaco oo dabcan ay amay sababto fatahaado amay sababto dabcan abaaraha ama ay sababto xaaladaha karantada runtii dalka ku iman karo oo xaaladaha khatarta oo dhan ayaan runtii halkan lagu baranayay gudoomiyaha hay-adda Sodma Maxamuud Macali Cabdulle ayaa tilmaamay in intuu ku sugan yahay magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya inuu madaxda urur goboleedka IGAD kala hadli doono fatahaada aan la filaynin ee uu sababay wabiga Shabeelle kaasi oo la rumaysan yahay in Itoobiya ay biyo xoogan soo fasaxday dabcan waxa kale halkan u jooga xaaladihii fatahaadaha aan la filayn oo wabiga Shabeelle taasoo runtii aan dhibaato weyn ka geysatay inta uu wabiga Shabeelle maro oo saddexda gobol Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe iyo Shabeelle Hoose taasoo idana halkan u joogno urur goboleedka IGAD xarunteeda halkan oo aan rabno runtii waxaan dareemaynaa in Itoobiya biyahaasi ay soo daysay marka in jawaab laga bixiyo aan ka rabno in xaaladaha biyahaasi iyo sida ay ku soo fataheen iyo sida loo soo deeyay ay maadaama ay cross border ay tahay gudoomiye Maxamuud Macali Cabdulle ayaa sheegay in hay-adaha beesha caalamka ee fadhigooda yahay magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya uu kala hadli doono sidii looga caawin lahaa ka hortagidda abaarta La Niño ee la saadaalinayo inay ku dhifato qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya iyo doorka hay-adda Sodma uga aadan arrintaasi waxa kalantooda runtii aad ogtihiin in dalka ay Ilaahay naga cayshay ay ku soo wajahan tahay sida la saadaaliyay abaar taasoo aan rabno insha Allah taala hadii la yiraahdo inaan adduunyada u bandhigno oo hay-adaha iyo dowladaha halkan joogo si ay nooga qayb qaadan lahaayeen dabcan isbuucyada soo socdana hay-adda Sodma waxay bilaabi doontaa gargaar gurmad degdeg ah oo dabcan aan gaarsiin doono gobolada dalka oo dhan annagoo runtii diyaarad meeshii lagu geyn karo ku geyn doono markab meeshii lagu geyn karo ku geyn doono meeshii dhulka iyo baawur lagu geyn karo ku geyn doono dabcan abaartu waxay saameyn doontaa from Raas Caseer ilaa Raas Gamboon dabcan laakiin meeshii la tigi karo oo markaas ay saamaxdo gobolada waqooyi waa ka xunnahay inaan wali aysan ogolaanin in gurmadka la gaarsiiyo laakiin inta kale from Laascaano ilaa iyo Jubbaland waa la tigi doonaa waa la gaarsiin doonaa hadii la yiraahdo